doorashada halkii loo cayimay intaad ka codayso dalkaya caawima qutee muwaadin codkaaga dhiibo muwaadin codkaaga dhiibo dadka oganayo adaa calanka oo sidee dadka oganayo fartaa calanka oo sidee cishada doorashada halkii loo cayimay intaad ka codayso dalkaya caawima utee muwaadin codkaaga dhiibo baabuurtaasi aanu saaka qaadnay oo aanu raray waxa ay sidaan waraaqihii lagu codaynayay oo ay tahay hadhowto in la geeyo goobaha ay ka dhacayso doorashadu waxay kaloo sidaan qalabkii kaleeto oo iyaguna ahaa ee lagu shaqaynayay goobaha lagaga shaqaynayay guddoomiyaasha degmooyinka aan sheegay ayaa iyaguna sii raacay oo u sii raacay degmooyinkoodii hadhowto oo la kala qaybin doono mid walba meel la geyn doono sida degmo walba inta goobood ay leedahay sidaad aragtaan tani waxay muujinaysaa in aynu ku jirro jawigii doorashada oo ay noo bilaabatay in dhoweyta way socotee laakiin tani waa mid kasii markhaanti kacaysa sida guddiga ama komishanka doorashooyinka qaranku uu u diyaarinayay muddaba hawshaasi iyada ah maantana la joogo wakhtigii ay midho dhalinaysay oo ay ayaameyna ka xigaan markii dadku ay safgeli lahaayeen oo ay halkaasi qaadan lahaayeen warqadda ay kuyuga gelayaan gudaha gelayaan calaamadinayaan xisbiga ay doonayaan iyo cidda musharaxa ay doonayaan inay u codeeyaan waxaa ugu horbaxaya oo maanta bilaabmaya shaxnadii ugu horeysay gaadiida ee agabkii doorashada sida agabkii doorashadu waxay u baxayaan 7 degmo oo ka mida degmooyinka bariga iyo degmooyinka galbeedka sida Saylac iyo Lughaya oo 2 degmo ah iyo Taleex iyo Xudun oo Soola iyo Ceelaf Weyn Ceerigaabo iyo Baran oo ah gobolka Sanaag intaas naga baxay maanta alxamdulillah rabbil caalamiin si wanaagsan bay u baxeen waa mid lagu farxo waa alxamdulillah waa doorashadii oo afkeedii aanu galnay